madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa khamiista maanta ah waxay Muqdisho kula shireen wakiilada beesha caalamka sida ilo muhiim u sheegeen Nation Media. kulanka Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe la qaateen diblomaasiyiinta dalalka loo yaqaan C6+ ayaa ku soo hagaagay maalin kadib natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday shirkii ka socday Afisiyoni. warar ayaa sheegaya in labada madaxweyne ay ku adkaysteen sii socoshada wadaxaajoodiyada kuna eedeeyeen farmaajo dibindaabaynta dadaalada xalka loogu goobayo ismariwaaga taagan. diblomaasiyiinta ayaa lagu wadaa inay la kulmaan madaxda dowladda federaalka islamarkaana kadib ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan xaaladda haatan taagan. dhinaca kale beesha caalamka ayaa markan u soo jeesanayso cadaadis ay saarto maamul goboleedyada dalka ka jira si ay u aqbalaan qabashada doorasho loo dhan yahay, waxa ayna madaxda maamulada ugu hanjabaysaa cunaqabateyn iyo xayiraad. wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale la sheegay inay madaxda taabacsan madaxtooyada Soomaaliya si gaara diiradda u saarayso si ay uga furfurto farmaajo ugana dhaadhiciso maamuladaas in raalli ka noqdaan doorasho madax bannaan. beesha caalamka ayaana aaminsan haddii cadaadis la saaro maamulada lagana furo filla Soomaaliya kuwa taabacsan in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dabcayaan ayna ogolaanayaan qabashada doorasho loo dhan yahay. kulan xalay dhex maray wakiilada beesha caalamka qaarkood iyo madaxda saddexda maamul oo taabacsan dowladda federaalka ayaa madaxda maamuladaas loogu hanjabay in xayiraad la saarayo haddii ay Muqdisho ka baxaan iyadoo doorashada heshiis aan laga gaarin.